midig haysiyoy haysiyoy midig haysiyoy haysiyoy militariga dalku maruma ogi dalkuwa manurekiya midig haysiyoy haysiyoy midig haysiyoy haysiyoy militariga dalku maruma ogi dalkuwa manurekiya masiibada maalintii maharoran mana obsadan dhufeeska makansadaayan midi ibidi misaar idaabshee adowka mulugsiyaayan maata madaran madasho waala ku moode militarigii Soomaaliyeed malyugo mahadsantiin masiibada maalintii maharoran mana obsadan dhufeeska makansadaayan midi ibidi misaar idaabshee adowka mulugsiyaayan maata madaran madasho waala ku moode militarigii Soomaaliyeed malyugo mahadsantiin midii liweki fantii marodaagi marikii waabaytis adow mulug siyaase mudubkii mugshabeel magaagii militari hani minkahaye muqdisho laka maamulaaye militarigii Soomaaliyeed malyugoor mahadsantiin midii liweki fantii marodaagi marikii waabaytis adow mulug siyaase militarigii Soomaaliyeed malyugoor mahadsantiin marka ugu horeyso sharafay ii tahay inaan qayb ka noqdo oo maantana goobjoog u ahaano qalinjabinta ururka 46 ee guutada 8aad qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababar qiimo badan inta lagu siiyay sharafay ii tahay qalinjabinta inaan kala soo qayb galo waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan inkaga hambaliyeeyo qalinjabintan iyo waxbarashadii iyo guushii aad soo gaarteen hambaliyo inaad noqotaan kuwii wixii la soo baray iyo aqoontii iyo taatiigii iyo training-kii ay qaateen dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ku difaaco inaad noqotaan baan idin rajaynayaa insha Allah taala saa ogtihiin dalkan wuxuu soo maray iyo waxa uu hadda ku sugan yahay iyo dawlad dhiska Soomaaliya meeshay marayso leen kaga sheekeynayo inta u badantiin xogaal baa ogtihiin waxa la socotaan maanta koonfur galbeed oo aad ciidankii xoogga dalka oo loo soo tababaray u tihiin marxaladda ay ku jirto oo ay geliyeen ilmo yar oo tababarkaad qabtaan aanan qabin oo aqoonta aad leedihiin aanan lahayn oo geesinimada aad haysataan aanan haysanin oo dawladda aad haysataan aan haysanin oo dawladaha caalamiga ah oo idin taageeray aysan taageereynin inay jidadka inka kala gooyaan beer abuurka idin diidaan guryihiin inaad tagtaan idin diidaan shacabkiinii iyo hooyooyinkiin iyo walaalihiin iyo xaasaskiinina ay go'doon geliyaan adinkoo intaanoo tababar qabo waxa weeye waa nasiib darro weey waxaan rabnaa marka annagoo og daruufta lagu jiro iyo waxa socdo iyo dadka hortaagan dawladnimada Soomaaliya iyo dhibaatada ay wadaan
tababarkiinnan in looga faa'iidaysto aad dalkiinna iyo dadkiinna iyo diintiinnaba aad ku xoraysaan cadowgan iyo gumaysigan iyo ciyaalkan yaryarka ah oo maskaxda laga gumaystay oo ummadda hooyadood iyo aabbahood lagu soo diray aad ka qabataan howlgallana fulisaan deegaanada la haystana aad xoraysaan jidadka oo dhanna aad isku furtaan adinkoo adeegsanayo tababarka aad qaadateen iyo tareerinka qiimaha badan oo laydin siiyey adinkoo adeegsanayo dowladnimada soomaaliyana u hiilinayo dad qaran ahna ah inaad waxa la inka filaya maanta in la inka helaan rajaynayna insha allah dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed maanta waxay u tahay farxad gooni ah markii ay arkaan ururka 46aad oo tababar u soo dhammaaday oo tareerinkii quruxda badnaa inta ku maray oo dadkan dhallinyarada ah oo sida fiican loo soo tababaray markay arkaan waxay ku joogaan farxad waxay aaminayaan inay si fiican u seexan doonaan mar dambena cunug wareersan oo been loo soo sheegay uusan hurdada u diidi doonin iyo aaminayaan farxaddaasay qabaan taasaan rabnaa marka inaad ka dhabaysaan oo aad tustaan baraatikana ku bixisaan wixii la idin soo baray iyo tareerinkii aad qaadateen inaad tustaan shabaab ay arkaan oo aad bannaanka ola baxdaan meel walbay joogaan iyo meel kastoy galaanna aad ka daba gashaan insha allah waana ka guulaysanaysaan hadduu ilaahay yidhaaho waxyaalaha muhiimka ah oo la isku dhaafay rag waa un rag laakiin waxa lagu guulaysto waxaa weeye dhiirigelinta iyo tababarka nin kasta ninka kale intuu ka tababar fiican yahay waa ka adkaysi badan yahay waana ka geesisan yahay waana ka dagaalyahansan yahay tababarkaasaa la isku moodaa dalkana lagu xoreeya waxaan aaminsanahay inaad tababar fiican hesheen waxaan aaminsanahay inaad tababarkaas ah ka faa'iidaysan doontaan waxaan kaloo aaminsanahay dadka ugu geesisanaa oo ugu fiicnaa inaad tihiin horeyna aad u soo shaqayseen haddana aad shaqayn doontaan insha allahu tacaalaa waxa la inka filanayana oy shacabkiinna inka filanayaan iyo dowladdiinnana aad ka heli doonto insha allah mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin hambalyaynayaa annaga dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedba hiil iyo hooba waa inla garab taagannahay wax allaale iyo wixii dhammaystir ah annaga oo kaashanayno dowladaha annaga cid kasta waxaan la garab taagannahay wax allaale iyo wixii baahidiinaa inaan dhammaystirno si aad waajibaadkiina shaqo u gudataan habeenii maalinna waan garab taagannahay insha allahu tacaala intaas kadib waxaan rabaa inaan inta uga mahad celiyo dowladda u k oo habeen iyo maalin garab taagan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo qaybta 6aad iyo guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed amniga iyo samafalka iyo developmentiga intaba noo garab taagan oo habeenii maalin hiil iyo hooba nala garab taagan oo nagala jooga safiiradda iyo wafdigeeda waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadaalka badan oy geliyeen ciidamada iyo koonfur galbeedba aad iyo aada ugu mahadsantihiin dowladda u k iyo shacabkeedaba oo ku mahadsan yihiin dadaalkay nala garab taagan yihiin sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taliyaha qaybta 6aad jenaraal ciirow oo habeenii maalin u taagan sidii qaybta 6aad ay qaybteedii 6aadoo hore oo la aqoon jiray ay ugu soo noqon lahayd habeenii maalin ka shaqeeyo una taagan ciidan dhab ah oo dalkiisa iyo dadkiisa difaacay inuu sameeyo isagana sidaasoo kale taliyaha aad iyo aad u mahadsan yahay saraakiisha kale oo la shaqayso oo taliyaha guutada iyo baanduulaha qaybta iyo saraakiisha qaybta 6aad oo dhan meel walbay joogaanna saasoo kale aan ugu mahad celinayna aad iyo aad ugu mahadsan tihiin shaqada fiican oo aad qabateen oo dalka iyo dadka iyo dowladdaba aa u haysaan aada ugu mahadsan tihiin wafdiga noo yimid oo wakhtigana soo geliyey uu ugu horeeyey wasiirka gaashaandhigga iyo abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiisha kaloo la jirta ayagana sidaasoo kale aad iyo aaday u mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo horey u socda tababarkiina ha socdo howlgalladiina ha socdo
wixii aad soo barateen aan aragno dadka in ku faraxay tababarkan aad dhammayseenna waxqabadkeenna gudaha ha sii arkeen. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.